43 jeer ayaa la isku dayay in la kharajiyo laakiin dhammaantood waa uu ka badbaaday waxa la isku dayay in la sumeeyo la toogto ama la qarxiyo laakiin ma suurtagelin 20 sano oo uu Ruushka hogaamiye ka yahay waxa isaga u ahayd shaqo la qabto tan ugu dhibka badan Vladimir Putin waxa madaxweyne ka yahay dalka Ruushka waxa lagu tilmaamaa in cid kasta uga khibrad badan yahay shaqada madaxweynenimo iyo halista ku gadaaman waxa la sheegay in celcelis ahaan sanad kasta uu ka badbaado weerar halis badan kaasi oo galaafan kara noloshiisa warbixintan waxa aynu ku faahfaahin doonaa qaar kamid ah isku dayadaasi la rabay in lagu kharajiyo madaxweynaha dalka Ruushka iyo sida uu uga badbaaday waxa kale oo aynu isla warbixintan ku dul istaagi doonaa sida loo ilaaliyo amniga madaxweyne Putin iyo 6 qaybood oo u xil saaran badqabka madaxweynaha magacaygu waa Nimcaan Cismaan halkana waa Fagaare Media shirqoolka isku dayada dil ee loo maleegay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu bilowday wax yar uun kadib markii uu qabtay talada wadankaasi gaar ahaan dalkan adduunka ugu baaxadda weyn sanadkii 1999 waxa aan suurtagal noqonin qorshe kasta oo la rabay in nafta lagu dhaafiyo oo ay abaabuleen maafiyada dalka Ruushka isla sanadkaasi waxa gaarigiisa loogu rakibay walxaha qarxa waxa se fashiliyay ilaalada khaaska ah ee madaxweynaha kuwaasi oo xiray xubno kamid ah kuwii weerarka soo abaabulay sanadkii xigay ee 2000 waxa uu ku sigtay in uu ku dhinto qarax meel fog laga hagayay kaasi oo lagu xiray gaari u dhawaakan madaxweynaha weerarkaasi waxa ku dhaawacmay qaar kamid ah ilaaladiisa gaarka ah isla sanadkaasi waxa fashilmay 2 weerar oo isaga lala beegsaday kuwaasi oo ka dhacay Uzbekistan iyo Chechnya 2002 waxa la damcay in lagu sameeyo gobolka Crimea ee Ruushku ka qaatay dalka Ukraine ka hor intii aana cunto dhadhamiyihiisu aan u dareemin in quraacda madaxweynuhu ay sumaysan tahay sanadkaasi kii ka dambeeyay waxa uu daqiiq kaga fakaday weerar loo adeegsaday qoryaha diiradda leh isaga oo ka qayb galay dowlatus military oo Moscow ay martigelisay qori sniper ah oo lagaga soo shiishay dhismo u dhow goobta ay munaasabadu ka dhacaysay ayaa ay fashiliyeen ilaalada khaaska ah ee la yiraahdo FSO oo madaxweyne Putin uu leeyahay jeer kalena sanadkaasi waxa uu ku bixi gaaray gacanta nin u dhashay dalka Ciraaq kaasi oo lala xiriirinayay Chechniyiinta gooni goosadka ah waxa uu ahaa weerar loo adeegsaday warxaha qarxa oo la hoos dhigay gaarigiisa laakiin bilayska Azerbaijan ayaa ka hortagay waxaana ay xidheen ninkii weerarkaasi soo abaabulay iyaga oo ku xukumay 10 sano oo xarig ah isaga oo ku sugan dalka Ingiriiska sanadkii 2003 waxa la isku dayay in mar kale la dilo 2 nin oo u dhashay dalka Ruushka oo ku hubaysan qoryaha sniperka ayaa ay qabteen booliska ka hortaga argagixisada ee dalka Ingiriiska oo la yiraahdo SO13 2012 oo uu booqday dalka Ukraine madaxweyne Putin mar kale waxa uu ka badbaaday kooxo naftooda horayaal ah oo rabay in ay kharajiyaan waxaad isweydiinaysaa sababta ay u dhicisoobeen dhammaanba isku dayada 40 ka badan ee la damacsanaa in lagu soo afjiro nolosha madaxweynaha dalka Ruushka marka laga yimaado qadarta Putin ma yahay ninka ugu nasiibka badan caalamka mise waxa jira sababo kale oo ka caawiya fashilka weerarada tirada badan ee loo maleegay aynu eegno 6 nooc ay u qaybsan yihiin ilaalada khaaska ah ee madaxweyne Putin qolada ugu horeysa waxa la yiraahdaa ilaalada federaalka ee gaarka ah waxaana loo soo gaabiyaa FSO kooxdan ilaalada ah waxay u xil saaran tahay badqabka amniga madaxweynaha iyo dhammaanba madaxda sare ee dalkaasi oo ay ku bixiyaan qiimo kasta oo ugu sareeya tira ahaan waxa lagu sheegaa in ay dhan yihiin ilaa iyo 50,000 oo miisaaniyadoodu aanay xaddi lahayn waa koox tababarkeedu oo aad u sareeyo laakiin aan waxba ahayn marka la barbar dhigo ilaalada gaarka ee madaxweyne Putin 2016 Putin waxa uu aasaasay ciidanka la yiraahdo Rosgard kuwaasi oo tira ahaan gaadhay 340,000 oo askari ma aha kaliya kuwa u qaabilsan amniga iyo badqabka madaxweynaha balse waxa ay fashiliyaan isku day kasta oo afgambi oo la damacsan yahay ama ka dhan ah xukuumaddiisa koox kale oo haysata kalsoonida ugu sarreysa ee madaxweyne Putin waa kuwa xabadda isku dhiga ee la yiraahdo Presidential Security Service waa mid ka mid ah kuwa khaaska u ah amnigiisa isku day kasta oo ay fashilin waayaan waxa uu la macneeyahay in 2500 oo ciidankaasi ka tirsan ay shaqada waayaan waa koox loo tababaray akhrinta wajiyada iyo luqadda jirka ee qofka waxaana awood loo siiyay in cid kasta oo ay uga shakiyaan in ay maleegayso qorshe amniga ka dhan ah ay toogtaan oo aan waxba la iska weydiin si guud ciidanka u xil saaran amniga madaxweynaha dalka Ruushka ee Putin waxay daadoodu u dhaxaysaa 19 ilaa 35 jir dhararkooduna aanu ka yarayn mitir iyo 70 ilaa iyo mitir iyo 88 waxaana miisaankoodu u dhan yahay inta u dhaxaysa
75 ilaa 90 kiilo, kuwaasi oo adkaysi u leh ku shaqaynta cimilo kasta. shuruudaha inta badan lagu qaato ama loo tababaro ciidankan ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Putin waxaa ka mid ah in ay ku hadli karaan 5 luqadood mid kasta oo ka mid ah iyo in ay faham fiican ka haystaan siyaasadda. shaqada ay qabtaan waxa ku jirta in ay hubiyaan qol kasta oo madaxweynuhu galayo iyaga oo ka taxadiraya qaraxyo loo dhigo ama kamarooyin qarsoon iyo qalab kale oo wax lagu duubo oo goobta lagu sii diyaariyay. wax kale oo ay u xil saaran yihiin cunno iyo cabitaan kasta oo madaxweynuhu isticmaalayo in ay hubiyaan. mid kale oo ka mid ah 6 nooc ee lagu ilaaliyo amniga madaxweynaha dalka Ruushka waa gaariga aanay xabaddu karin ee uu ku safro. Arus Senat waa gaari lagu farsameeyay dalka Ruushka. dhinac kasta oo gaarigaasi ka mid ah waxa loo sanceeyay in ay xabadda celiso iyo waliba xitaa qaraxyada. waxa kale oo la sheegaa in uu celiyo gaaska kiimikada ah ee u soo gudbi kara gudaha gaariga. kamarada yaryar oo qarsoon ayaa ku rakiban gaariga dhinac kasta, kuwaasi oo ilaalada u saamaxaya in ay la socdaan qayb kasta oo gaarigan ka mid ah. xilliyadan dambe Putin waxa uu ku safraa tareen. warbaahintu tareenka kan waxay ugu yeedhaa tareenka rooxaanta. waa tareen muuqaal ahaan aan waxba kaga duwanayn tareenada kale ee dalka Ruushka, balse waxa uu dheer yahay ishaarooyin kor kaga xidhan. gudihiisa waxa ku yaala maqaaxiyo laga cunteeyo, xarumo caafimaad iyo goobo jimicsiga lagu sameeyo, iyo xafiisyo si heer sare ah loo qalabeeyay iyo goobo u qaabilsan madadaalada. tareenka qudhiisu waa mid aanay xabadda iyo qaraxu midnaba karin. goobaha uu istaago ee dalka Ruushka waa kuwo cayiman oo intooda badan qarsoodi ah. markana aynu fiirino sida Putin uu ugu safro hawada sare. marka ay tahay gudaha Ruushka, madaxweyne Putin waxa uu ku safraa diyaarado helikobtar ah kuwaasi oo u safar samaysan sida kuwa ciidanka. diyaaradahan qumaatiga u kaca waxa ay leeyihiin daaqado aanay xabaddu karin iyo waliba difaaca ka hortaga gantaalaha. inta duulimaadku socdo waxa gaaf wareega diyaarado dagaal oo uu Ruushku leeyahay. diyaaradan helikobtarka ee madaxweyne Putin uu ku safro gudaha dalkiisa waxa ay leedahay qalab isgaadhsiineed oo uu kula xiriiri karo golaha sare iyo guddida talisa ee dalkiisa, kuwaasi oo uu siin karo amar kasta oo uu ku jiro in la isticmaalo ama la rido hubka nuclear-ka. qorshuhu waa uu ka duwan yahay marka Putin uu ku safrayo meel ka baxsan dalkiisa. waxa uu ku duulaa diyaarad gaar ah. waa nooc dib loo casriyeeyay oo ah IL-96-300BU. waa diyaarad leh hanaanka difaaca ee ka hortaga gantaalaha. baaxad ahaan waa mid qaadkeedu uu aad u weyn yahay oo la saari karo ciidan militari oo xooggan iyo saraakiil militari. diyaaradani si la mid ah tareenkii aynu hore uga soo hadalnay waxa ay leedahay dhammaan wax kasta oo gudaheeda looga baahan yahay, sida jiifka, goobaha qubaysiga iyo jimicsiga iyo caafimaadka. la yaab ma leh haddii la yidhaahdo diyaaradda madaxweyne Putin qiimo ahaan waxa ay gaadhaysaa $550 milyan. ugu dambayntiina waxyaabahaasi oo la isku daray waa kuwa u xil saaran ilaalinta iyo badqabka madaxweynaha dalka Ruushka. waxaana jira xogo sheegaya in madaxweyne Putin uu shaqadooda laban laabay tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii uu ku qaaday dalka Ukraine.